السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعن ونكسن دمان أخيارتا قيمي قدرنتا إنغان بدن meel walba oo dunidan dacaladeeda kaga sugan tihiinba waxaan idin leenahay barqo wanaagsan maalin wanaagsan ku soo dhawaada channelkiina Reexaan Channel meel walba aad joogtaanba maantana waxaanu soo qaadanaynaa mid kamid ah xiwaaraadka ugu xiisaha badan oo aynu ku barnayno luqadda Carabiga وحنا كبلابنا يا عشر كيجا مانتا نتحدث عن التعليم في الصومال نتحدث وحين كوضا شيكي سنينا عن التعليم في الصومال وحبر شذا جيجا صومالي ذا ينو كوضا هاد لينا وايه إنك كالوحا ويري إنها فكرة جيدة وفكرة ونكسن ورأي صوبا إنها فكرة جيدة وأنا أرحب بها أن وانسو دوينيا وأنا أرحب بها أن يكون وانسو دوينيا فكرة داس أو إن كوضا هذا النوع وحبرشدا كذها صوماليا كجرتا وحوجري سمعت أن جودة التعليم في الصومال ليست جيدة ما هي حقيقة الأمر سمعت وحان مقلي أو مقال إيوه أن جودة التعليم تيذا وحبرشدا في الصومال قدها صوماليا كجرتا ليست جيدة إنيسان وناكسنين أو تيأيسان لهين ما هي حقيقة الأمر أرين كان محا كجرواي أرين كان محا كرون صحيح ويري وصح أنه لا يوجد تعليم جيد ما جرتو يري وحبرشو هجاكسن أو تيسن كما جرتو جذها صوماليا ولا يوجد لجمانة هلا يواي أما مجرو نظام تعليمي مستقر نظام وحبرشو أو دكسن أما نظام وحبرشو أو فضية كما جرو جذها صوماليا وحبرشو مركز تيذا ayaa kulliidata way balse waxbarasho iskuulaad jaamacado iyo madaaris iyo bareefadyo iyo goobo fara badan xarumo badan oo wax lagu barto way dhax eegaagaan oo way ka wada furan yihiin gudaha Soomaaliya hase yeeshee hadana ma ahan mid tayaysan oo wanaagsan fi ra'yika yiri marka aragtidaada adigu ma huwa sababu fi dhalika arinka maxaa sabab u ah fi ra'yika aragtidaada adigu hadii aragtidaada ka dhiibato في نظرك ما هو السبب في ذلك أرنك محا سببه إن حرمك وحبرشو أي كوذا جران ويقودهان مقالوينك إي تولوينك إي عاصمتها إي قبلة دالك أو إذل حرمك أو وحبرشو إنك جران هذانا تيذي الله بحنا آنان وري لهلين أرضي كسو بحا هذانا وصلهين أرضي أقول تيسو أي لما يسرانتهاي أو ميت تيسان aysan ahayn maxay tahay sababtu aragtidaada inooga warbix fi ra'yi ayuu yiri aragtideeda anigu yarji'u dhalika ila alwad'i alladhi ta'ishuhu albilad aragtideeda waxa uu yiri yarji'u dhalika arinka waxay u laabanaysaa un dib u cilna oo u sababayna ila alwad'i xaalka alladhi ta'ishuhu albilad xaalka uu ku jiro oo ku nool yahay wadanka xaalka wadanka ay u laabanaysaa taas oo wadanka ayuu waxbarashadana la qaybsanaynaa mithlu ضعف الامن sida amni darro ama amniga oo liita oo ضعف الاقتصاد dhaqaalaha oo xun ama dhaqaale xumo وعدم الاستقرار السياسي sidoo kale siyaasad sugan oo aan jirin ama siyaasad xumo وسوء الإدارة iyo maamul xumo intaas ayaan anigu u celinaya oo sababayna inta ma dil waayo macnaheedu waxa way waxbarasho tayeysanna ma jirayso ضعف الامن hadii amniga uu liito oo amni aysan jirin meel amnigeeda uu liito waxbarasho tayeysan ama waxbarasho fiican kama jirayso وضعف الاقتصاد dhaqaale xumo dadku hadii dhaqaale xumo ay jirto waxbarasho qofka ama waxbarasho in la tayeeyo ama qofka inuu si fiican wax u barto laga ma sugayo oo
وحولت على ولد على دعية إن ودقاره وكنا لها وراديو marka qof qutriyom uu ka maqan yahay waxbarasho tayeysan iyo meeshaas kama jirayso ama waxyaabihii oo kaabaya dhaqaalihii ama waxbarashadii kaabay ayaa meeshaas ka baxaysa darteed marka qofka ama ardayga awood uma yeelanayo in uu wax barto siyaasadda degsaneyn oo manhaj nidaam siyaasad fadhisa aysan jirinna sidoo kale ma jirayso waxbarasho tayeysan idaar xumo ama maamul xumo waa hadii ay jirana sidoo kale waxbarashadu أيضا ما هجاجي سوى ومعمول حم أو ليتاهي حبر الشدو وحيل هاي درنجرة يا لا مركز درنجرة هدي وحكاك الضمان أما إدار حمو أما معمول حمو ودعو منهج كلا الدول أرضي سنة سو جد بي أما لبوتيناي أو كلا إمادان معمول كأن إسا دول ليتو سدو كلا حبر الشدو ما تيسمس شكرا ما السند يحتاج وحنقبها إلى تفاصيل وأمثلة إلى تفاصيل أحتاج أن وحنقبها إلى تفاصيل معلومات فافاهن أيانقبها إلى تفاصيل إضافية فافاهن ديرات أيان رباء وقبها أرين كان وأمثلة يتصارون إنها بحس تصار إنها تكليبتو أتكبحسو تفاصيل أم فافاهن أدنو رأسيسو ويقول إذا تم تحسين كل هذه النقاط هدي أي هجاكتو أي توستو لما نقدوين كان أما قضبان فاكتوريس كان هدي وتوسو سوف يتحسن التعليم وهجاجي أو في عنانية وحبرشدنا وهجاجيسا هدي قضبان عاشقنا أو حاجة أمريكا لقالها أو في عناده أمريكا أو نقض أمريكا سكوها لين كرو معاني maamul iyo arday iyo deegaan iyo bee wax lagu barto la helo oo amni ah waxbarashadu way hagaagaysaa hadii dhaqaalihii uu wanaagsanaado oo arday kasta awood u leeyahay waa buugtiisa uniformkiisa iyo agabkii waxbarashada oo idil uu heli karo oo san absi iyo baahi aysan jirin sidoo kale waxbarashada waa tayasmaysaa sidoo kale siyaasad fadhisa hadii la helo oo gagdoon aan lahayn sidoo kale waxbarashadu way tayasmaysaa hadii maamul wanaagsan oo isku xiran ilaa iyo wasaaradda xafiis wasaareed isku xiran laga bilaabo for master lagu xijii kaab kalaas maamul ilaa agaasin ilaa wasiirka waxbarashada intaas isku xiran yihiin maamulku uu yahay mid fadhiya oo hagaagsan sidoo kale iyo muqarrar ama manhaj toosan iyo macallimiin tayeysan inta baa la isku helo waxbarashaduna way hagaagaysaa marka maamulka haduu fiican yahayna sidoo kale waxbarashaduna way tayasmaysaa oo xisaabtan iyo ay jirto maxaa la yiraahdaa dabagal iyo muraaqabeyn wanaagsan ay jirto waxbarashaduna way hagaagaysaa marka nuqdooyinka dhan ama factorskan dhan ama qodobadan dhan hadii la helo waxbarashaduna way hagaagaysaa ayuu على سبيل المثال تصالحان إذا ضغط المعلم على الطالب هدي بروه أما معلمكو وعداد السارو على الطالب أرضي هدي معلمكو وعداد السارو ومحو صاريا لتقديم إجابات لأحد التمارين أرضي إنو كانوا جوابها ليلي مد كميدة ليليو ومعانقاس أودري صارهان هدي وصو قدبيو وعداد سوكو صار معانقاسي فهو يسوي ولي لا يخاف من اليد الخلفي يسوي ولي معانك عن كبقين قعان دنبه معانك أصلا كبقين وحكا دنبه أرين كان هدي تاسع دعضو معلمكو أبود قول لي إنو عدادي صارو أرضيك وحبر الشضا عدادي سوكو صارو سيدا إنو ليلي أدر أو يرادو وحان كاربا جوابه إناد إيه كنتو مارين هبل أرضي عدادي سكاس ولكلمو معانا قصة وحكا الآن كبقين waxbarashadu way hagaagaysaa oo macalinka dugaal uu ka baqayo aniga waxa waa hadii uu ka baqayo macalinka ardayga banaag uu soo bixiyo ama uu cadaadis saaro ardayga uu xanaaqo ama waxbarashadii uu naco ama banaag in la keeno uu ku istaago maamulka kadib uu arko ardaygaasi oo banaag soo saaray ama cadaadis uu ku socdo oo yiraahdo macalinka markaas faraha qaadani kaan ardaygan anaga ceerinin maalmaha cadaadis ayaa saartay sadarteeda marka ardaygan hadii uu baxo
adigana waad baxaysaa. Marka bixitaan hadii la yiraahdana macaan adiga ayaa fudud in aad baxdo xagga bixitaanka adaa ku fudud. Marka ardaygan isku taabanay waaya marka macalinka ardayga ayaa qiimo lahayd halkaasi oo xagga iqtisaadka ay wuxuu fiiriyaa ama dhaqaale ayuu ka fiiriyaa xaggaas maamulka. ama ma ahane ardayga cadays hadii la saaro oo macalinka uu saaro macalinka wuxuu ka baqaaba ardaygan cadays hadii la saaro ardayga in uu tilaabo ka baxsan waxbarashada uu qaado in macalinka jidka uu istaago maxaa ii banaag isoo saartay maxaa ii istaajisay maxaa asaan ii sameysay maxaa maamaha ii indhaha ii qabanaya indhaha ii gubaysa ciyaal weero ka tirsan yahay tusaale ahaan macalinka waa ka baqaa oo iska daafa xaalka iyo amniga ayaan fiicnaynba. marka haddii ardayga ciyaal weero uu yahay sidoo kale ardayga macalinkaasi waxaa laga yaabaa inuu indhaha uu ka weeciyo oo ardayga uu noqdo arday dhib badan sidaa darteeda marka culays xaggaas uu ka yimaado. marka amni hadduu jiro macalinka uusan wax gadaal uusan ka baqayn gacan dambe macnaha noocaas noqonaysa maamulka baqaa ardayga naftigiisa ka baqaaba marka dhibaato imaanayso. marka qodobada hadii la helo ayuu yiri waxbarashadu waa tayeysanaysaa oo manhaj tayeysan iyo macallimiin tayeysan iyo maamul iyo wasaarad iyo agaasi inta badan isku helo. marka fahuwa laa yaqaafu macalinka uusan ka baqayn man yadi alkhalfi gacan dambe kan baqaaya ama waalidka uu ka baqa xataa idan sidoo ay timaadaan maqal ardayga hadii si loo cadaadiyay in waalidka uu yiraahdo ardayga waa cunugayga waa macalina ku karan maxay tahay macalinka ku karan waalidka uu yiraahdo soo cawaado soo qayliyo oo macalinka jidka loo istaago la raadiyo waa culays kale idan. waa taaba cashirkeeni maantana halkaa ha inoo joogo aad u mahadsantihiin waxaad nagala socoteen channelka Reexaan Channel meel walba aad joogtaan waxaan leenahay maalinku ha idin wacnaado barqo wanaagsan waxaan leenahay soon wanaagsan dhammaantiinaba cashirkaas xigintaan kulmi doono dhammaantiinaba waxaan idin leenahay maalin wanaagsan wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.